halkan aan daawadayaal ku sugannahay waa dooxa magaalada Hargeysa saacaduna waa baaralabadii barkii habeenimo halbeega lagu cabiro heelkulka iyo qabow waxa uu marayaa 7 digrii oo kaliya daranyada dhaxanta midii ugu darneed ayay dugaashanayaan danyarta ku dhaqan caasimadu anagoo ka duulayna ka warhelista wacyiga ay ku sugan yihiin bulshada hayntoodu hooseyso iyo kuwa darbi jiifka ah ee ku nool gudaha magaalada Hargeysa ayaanu beegsanay goobaha ay ku nool yihiin waxaana u koorgalay balwadciga nololeed ee ay wajahayaan xilligan daran ee dhaxamaha waa sayid dhaxantaniyo feeray ka galisa maxaa gudaarkaas saxnaayo meel ma qabanaba maxaa dadkuna soo caawiyaan badanayo kartoomada ay waxaas tul saarnaa hadii adigu aad degan tahay guri daara amaba aad haysato hooy aad ka gasho dhaxanta buste iyo jaakeed sidoo kale aad xiran tahay waxa jira dad danyar ah oo ku sugan gudaha magaalada Hargeysa oo aan iyagu haysanin hooy ay ka galaan dhaxantan baahsan ee ka jirta gudaha Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa sidoo kale aan awoodi kareynin inay helaan agab ay ka xidhaan ama kaga gaashaamtaan dhaxanta adag ee ka jirta Soomaaliland kuwana waa qaar kamid ah daayarta Soomaaliland soo koraysa amaba u soo kacaysa waxa dhaxantu ku haysaa qaybo kamid ah sharciyada magaalada Hargeysa gaar ahaan wadooyinka waaweyn ee halbowlaha oo magaalada Hargeysa halkan aad ku sugan tihiin waa mid kamid ah wadooyinka magaalada Hargeysa xagga hoose waxa hooy idinka oo xagga hoose idin yaala sabad inta badan dhaxanta ay ka iman karto dushana bacaad ka weyntii sidee idinka difaacdaa arintaas maxaa wax naga difaaca maxaa kartoonka bacaana dushaas ka saarna marka sidaad u ladaan maadaama dhaxantani ay tahay mid soo dhaafisa kartoonka iyo bacda iyo maryaha xirantiinba bacawda dhaxama macaliyaan oo 3 boqol iyo waxaan deestul saara dhaxantan dhaxan weeyano meeshan seexdana ma haysto meelaha ilaahay baa iska seexda guladow maryahan xiranta dhaxanta ma ka caliyaan igama celiyaan aniga marka sidaad hurdo ku heshaa ama baad u seexataa aniga intaas iska jiifon baa hurda dhaxanta nooyni dishaan daawadayaal sidoo kale dhalinyaradan gudaha magaalada Hargeysa ku dayacan waxa sidoo kale iyaga u sii dheer oo la nool xayawaanka noocyadiisa kala gedisan oo sida arkaysaan oo kale waxa la jooga daanyeer oo goobaha ay ku sugan yihiin kula sugan oo aad moodaa inay iska weheshadaan ba dhibaatooyinka iyo dhaxanta ka jirta gudaha magaalada Hargeysa ma halkan aad hooyataa taaka sagla xaga bogeeda meelaha ka saxda maxaad la kulantaa xilliyada habeenkii oo kale xilliyada way ka saxda dhaxano way qabataa xilliga cuntooyinka kale sidee isku tihiin ma cuntaysaan oo cunto ma heshaan hudagayaasha ka qaadana qaar baan kini jiido hadeerto waad xamaysneed waxaad joogtay suuqa gudihiisa hadda waad casheynaysaa ka waran dareenkaaga fiicaya waa laga naamta halkaygii baa iska weynaa halkaygii baa iska weynaysaa derbiga ku laabanaysaa yaa magacaaga cami Suhayb Abdi Suhayb dhaxanta ka waran dhaxanta aad iyo aad oo habeen kasta oo fahmaan qana waa aad dhaxan badanta meesha maxaad ka huwataa waxaad ninka uu magaalada halkan cidina madagna waan gartay ma fahantay halkan dawladda wadana dhawna xoon ma qabato waan gartay koodii aad doona meelaha tan kaambeetanayo dadka xabna marka la eego xilligan aan ku jirno waa xilliga dhaxanta kood ma xidhnid oo waxaad xiran tahay maro yar iska soofti oo kuwa suudka tanoo kale dhaxanta ma ka celisaa ma iig ma celisa dhaxanta daawadayaal dadkan danyarta ah ee ku sugan kaamkan Istanbul aad ayay u badan yihiin sidii la inoo sheegay dhinacayga waxaa joogta maamo aad u daaweyn hooyo magaca Khadija
way khadiija bal ka waran dhaxantan iyo maxaan ka waramaa dee waqtiga ay naga dhigtee dee waa haye ma jirtaa waxaad ka xidhato aad haystaa dhaxantan xageen ka keenay ma haysta waxaan ka huwado hawshaa dhaxantaa qofka wakhtigaa aan wuxuu huwadana haysan ee gidaar jiifa ama xuskiisuba aanu dhammayn ama carruurta ah ee aan cid ka mas-uulaba haysan dee dawladda dhalatay baa ka mas-uula dawladdu waxaanu leennahay dadkaa ka war hayso meel kastoo joogaan ilaahay cid aan ahayn oo maqaynaa ma jirto iyagay codkoodii ku soo baxeen dawladdu wax u qabataanu leenahay dadka bulshada Soomaaliyeed idilkeed ayay gurmad ka rabaan waxayna danyartani ku nool yihiin dabaqada ugu hooseysa ee Soomaaliland Hargeysa oo caasimad u ah Soomaaliland qiyaastii 1 milyan oo ruux ayaa lagu tilmaamaa inay ku nool yihiin waxaana xusid mudan in maalqabeennada xukuumadda iyo taajiriinta midna aanay inta badani waa Soomaaliland aysan daymo naxariis la ku eegin kuwooda tabaalaysan ee danyarta wax ka ogaanshaha xaaladda ay ku sugan yihiin danyarta iyo darbijiifka Hargeysa waa mid aan cidina xamili karaynin dhaxanta jirtaana waa mid ay ka dayrinayaan kuwooda guryaha dugsoon ku jira ee gacantooda buuxdo haddaba daawadaal kuwani waa qaar ka mid ah danyarta iyo darbijiifka Hargeysa oo aan hoy iyo gabood ay ka dugsadaan dhaxanta daran ee Hargeysa ka jirta aan lahayn waxayna dhaxantan inta badan ku soo foosartaa fagaarayaasha wadooyinka iyo cooshada ka samaysan baco iyo karaatoon aan awood u lahayn inay ka celiso dhaxanta daran ee ka jirta gudaha magaalada Hargeysa ururka gargaarka caalamiga ah ee Alpha Trust oo ah urur taakuleeya danyarta Soomaaliyeed ayaa ka qayb qaatay xaaladda adag ee ka jirta guud ahaanba magaalada Hargeysa waxayna deeq ka kooban bustayaal jaakadaha dhaxanta ay gaarsiiyeen kaamam kamida kuwa danyartu ku sugan tahay ee magaalada Hargeysa qaar kamida dhibanayaasha ay hayntoodu hooseyso oo la hadlayay telefishinka caalamiga ah Universal ayaa ka mahad celiyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen ururka mutadawiciinta danyarta ee Alpha Trust ururka Alpha Trust aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa khayr Allah siiyo say noo dhiibin Allah u dhiibo awal qabo baan dareemayay imkaanigii ubadkaygiba aad iyo aad baan faraxsanahay ururka dhalinyarada Alpha Trust ayaan mahad u celinaynaa ilaahay kana arki ka soo saareen miisaanka xasanaadka Allah ugu daro alaabta ayna siiyeen inagu mahad celinaa wax badan bay noo tareysay maxay dhaxanta ay ku gaanaan haysan ayaan ugu mahad celinayna ay noo keeneen waan dika guddoonay bustayaasha noo keenteen waana ku mahadsantahay wanaan ururka Alpha Trust ayaan mahad celinaya wallahi aad u weyn baan qabnaa dhaxan baan hayso imankan diiwaan ducaynayna ilaahay khayr dhaxanta sano kaga raysanayna 2 bilood iyo 6 habeen bay xalay ah xanuun baa haya waxa isugu tagay darmaday kaniciya baashi ahayd xiiq marka aad baan xanuunsanaya halkaana waan ku nool waa sida aad si adag jawaabta adarkaysa guri hooyna malihin meesha adaragtay nin walba jawaanba ku hoostiraa dabaysha la tag jawaanka qaada tacaynkaasaan ilaahay u baa sugaynaa iyo wixii naxaya ee xuquuqul aadam ama ku naxo ama islaamnimada ku naxay labada maxamed celina dadka loo keenay koolkiyo dharka waad mahadsantihiin cimrigana Allah idin dheeriyo ceebtiinana Allah asturo cimri dheerna Allah idin siiyo ilaahay baan u mahad celinaynaa ururkana waa u mahad celinaynaa Fatras inkastoo baahida ka jirta Hargeysa iyo deeqdani ay kala badan yihiin ayaa haddana waxa ay deeqdani ka saartay marxaladihii dhaxameed ee ka jiray qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee gacanta ururkaasi ay gaadhay ceelowma qodna cidina uma maqna waxayna naawilayaan rajada Alle subxaanahu wa ta'ala najiib cabdiwali cabdixiis telefishinka caalamiga Universal magaalada Hargeysa